guddiga qabanqaabada caanashubka ugaaska guud ee beesha Xasan Ugaas oo muddooyinkii dambe ku mashquulsanaa diyaarinta munaasabadda caanashubka ayaa maanta warbaahinta kula hadlay deegaanka Buro Wadal ee gobolka Sool waxaana ay ku dhawaaqeen xilliga rasmiga ee lagu caanashubayo ugaas Maxamuud Ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur ugaaska guud ee beelaha Xasan Ugaas waa kuwan guddiga qabanqaabada caanashubka ugaaska guud ee beelaha Xasan Ugaas oo ka hadlaya arrimahaasi waxaanu halka ku shaacinaynaa xilligii caleemasaarka ugaaska guud ugaas Maxamuud Ugaas Cabdilaahi dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sida dawladda federaalka dawladda Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug Puntland iyo Somaliland iyo kililka shanaad ama dawlad deegaanka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa Hirshabeelle in ay dhici doonto xafladda ugaaska guud iyo caleemasaarkii kowda bisha koowaad ee sanadka cusub oo ku beegan maalinta Isniinta taa oo ka dhici doonta deegaanka Buro Wadal oo ka tirsan degmada Boocame waxaanu leenahay ka soo qaybgal wanaagsan xafladda oo bilaaban doonta 8 subaxnimo kuna eg 12 duhurnimo baan ogeysiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gudub waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ee caleemasaar ka soo qaybgali doonta xafladdu halkaas ay ka dhici doontaa insha Allah bidmillaahi kariim waxaanu inta aanu gaari karno ka mamnuuca siyaasadaha waxa ka mamnuuca amni darrada waxa ka mamnuuca waxyaalaha khalkhalka galiya bini'aadanka oo dhan waxaanu baaqnamadeed u soo jeedinaynaa labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamay gumburka waxaanu leenahay shaqaaqada halka ka dhacday waana ka xunahay mid loo baahan yahay maaha mid waqtigeedu ka habboon maaha mid ku wanaagsan maxaan ku yiraahdaa islaamnimada iyo derisnimada maaha waxaanu leenahay si degdeg ah waa in baaqa haddii soo gaaro aad ugu dhagan nuglaataan halkan baaqnabadeed uga soo jeedinaynaa labada beelood ee ku diriiray deegaanka Qoriley iyo Gumburka iyo Soonaha u dhow labada qabiil oo ah ama labada beelood oo ah Bahar Same iyo Umar Maxamuud waxaanu leenahay dagaalka joojiya Ilaahay ka baqa waxaanu u soo jeedinaa baaq nabadeed ummadda ku dagaalamaysa hawd ee walaalaha ah ee dariska ah ee hanti wadaaga ah oo dad iyo dunyaba ay wax walba ka dhaxeeyaan inay joojiyaan dagaalka inay joojiyaan baan u soo jeedinaynaa waxaanu u soo jeedinaynaa waxa la yiraahdo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashay Samiir Saciid Bila Bulsha TV Laascaanood